الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكلمديني كوبنا براarujinta ahaa waqtigaynu istinaahna waa loo baahan yahay wax sheegmada. waxaynu maraynaa ayaabihii qiimaha badnaa. kelmadeenani waa fadlu yowmi carafa, maalinka carafa iyo fadliga uu leeyahay. maalmaha sanadka marka la eego waxaa u fadli badan maalinka carafa la yidhaahdo, sida habeenada sanadkaba uu ugu fadli badan yahay habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo. nin yuhuudiya ayaa u yimi cumar ibnu khadaab, allaha ka raali noqdo. wuxuu ihi haddii ay nagu soo degi lahayd aayad qur-aankiina ka mid ahoo a akhridaan, maalinkaa ciid baanu ka dhigan lahay. waa aayadee buu ihi oo wuxuu sheegay markaa aayadda alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina. maantaan idiin dhammaystiray nicmadaydii. alyowma akmaltu lakum diinakum, diintiini baan idiin dhammaystiray. nicmadaydii islaamkaan idiin kaamilya, diinta islaamkaan dhaqan ahaan idinka raali noqday. aayadda macnahaa sheegaysa. cumar ibnu khadaab waxa uu yihi waxaan ogahay maalinkay soo degto carafo ah oo jimco ah, fadligaana ugu sii darbuul. markaa waa maalinkaasi maalinkuu nebigu ammaanaya calayhi salaatu wassalaam. ducada la ducaysto ducaau yowmi carafa ayaa u fadli badan buu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam. aniga iyo nebiyadii iga horreeyeyna waxaanu nidhaahna waxa u fadli badnaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir. waa ducaau hanaa, duco ammaan ilaahay xambaarsan weeyi. maalinkaa isaga ah qofka aan xajka gudanayninaan carafo taagnayn waxa u fadli badan inuu soomo, siduu nebiguba lahaa sala allahu calayhi wasalam. ilaahay waxaan kaga sugayaa inuu igaga dhaafo sanadkii horiyo ka soo socdaba maalinkaa soomkiisa. maalinkaa isaga ah camalada la samaynayaa waa kala duwan yihiin. kow waxaa ka ah in la badiyo ducada, sa aynu soo sheegnay, in la badiyo dikriga ilaahay iyo xuska iyadoo qofkiina uu sooman yahay. laakiin qofka wuquufu carafa samaynaya carafo taagan waa howlaysan yahay isagu. inuu soomo uma fiicna, inuu iska afraa u fiican. culimada waxay ku fasiraan waa alyowmu lmashhuud, waa maalin goobjoog la yahay. wasamaa'i daati اlburuuji walyowmi اlmawcuudi washaahidin wamashhuud. waa maalin ummaddu isu wada timid oo xaadir la yahay. maalinkaa isaga ah waa maalinkii ilaahay uu ku dhaartay baa culimada qaarkood ay leeyihin washafci walwatr. waa tirada isdhiman iyo tirada buuxda. marka tiradaa buuxda waxa ay leeyihiin waa maalinkaa carafa ayaa kuwayaalaha soo galaya ka mid ah. yowmkaa isaga ah marka aada ku baraarugsan tahay fadligiisa, camalkaad samaystaana wuu fadli badnaanaya. marka waxaan isku baraarujinaynaa inaan wax shara iyo xumaan xaggood loo kicine, laakiin lagu dadaalo diin ilaahay iyo daacadoo la badiyo, ducadoo la badiyo, diinta ilaahay ku dhaqankeeda, soomkii, aan idhaahdo qeybihii kala duwanaa cibaadada. markaa qofku kolka uu jaaniskaa ku qaato waxaan rajaynaynaa in loo aqbalo. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa waa maalinka ilaahay ugu badan yahay xoreynta addoomaha uu naarta ka xoreeyo. maalinka ugu badan yahay wey. waa maalinka uu ugu cabsi iyo ciil badan yahay shaydaanku. oo markuu arka ummaddii ilaahay oo xagga alle u soo jeeda oo goobtii carafa wada taaganoo alle daraaddii u taaganoo halkaa ku soo ururtay, shaydaanku maalintaasi ugu dilli badan yahay, ugu daciifnimo badan yahay. ilaa dadkiibaa ilaahay xaggiisa u sii wada jeedsaday. marka waxaynu leenahay fursaddaasi yayna dhaafin. ee qofka halkaa camalkii xajka ku gudanayaana fursaddaa ha ka faa'iidaysto. qofka maqanina hala dareen noqdo oo diinta qeybaha kala duwan aynu soo sheegnay aada ha uga faa'iidaysto iyo soomka. wajazaakum allahu khayra, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.